Bakira cunuga yariiska wuxuu u keenay Akila si uu u koriyo oo uu uga daro familkiisa. Akilana wuu ka ogolaaday midaas waxaana cunuga yariiska loo bixiyay Mowgli. Balse Mowgli mar walba waxaa soo weerari jiray Shere Khan. Shere Khan mar walba wuxuu rabay inuu cuno wiilka yar, balse Bakira ayaa mar walba ka badbaadin jiray, wuuna la dagaalami jiray Shere Khan. Mowglina waxaa qabsatay Kaa waxayna ugu sheekaysay dhibaato walba oo uu Shere Khan u geystay aabihiisa iyo inuu Shere Khan dilay aabihiisa. Cunuga yariiskana waxay rabtay inay cunto. Cunugii yaraa ee Mowgli qaybta labaad. waxaanu idil hal duurme ka wada dhaceen weliba meesha anaga u socono. Roobka wuu joogsaday ee soo baxa anigan waxaan rabaa inaan Mowgli arko. waayahay soo baxa balse xasuusnaada duurka waa khatar. balse anaga waxaanu hayaa wax na difaacayo. duurka xayawaanada joogan luuqadood waa fahmaynaa. Bakira waa uu ka soo badbaadiyay Kaa Mowgli wuxuuna ku soo celiyay duurka. Mowgli Bakira Mowgli ma fiican yahay. haa wuu fiican yahay. Shere Khan wuxuu diray aabaheega meesha bini'aadamka joogaana wuu wada gubay. aniga waa ka argudanayaa asiga. waad ka argudan doontaa wakhtiga uu ku habboon yahay. anaga dhanne adiga ayaa kula jirnaa. Akira Shere Khan wuxuu ku soo dhawayahay dhulkaaga mar dhowna wuu soo gaarayaa meel walbana dadka jooga wuu baabi'iyay. qof walbuu dilooyaa. iska taa imaade aniga diyaar ayaan u ahay. awaa anaga wuuna arkayaa aan ka cararna meeshaan. ayaga mana maqlayaan mana arkayaan wax walbana si fiican u socdaa. Shere Khan aniga adiga ayaa ku sugay si aan kuu dilo meeshaaneed maanta waa ku kala baxeenaa. waxaad diyaar u tahay inaad dhimatid aniga waan kuu jeedaa. Bakira wuxuu mar badan isku dayay si uu ku badbaadin lahaa cunuga yar uuna Shere Khan uu qaban lahaa balse guuldarro ayay ku dhammaatay. Bakira aad ayaa loo dhaawacay wuuna awoodi waayay mar kale inuu istaago.
kartaa balse adiga awood ma lihid. ma og tahay inta sano aan sugayay inaan adiga ku dilo oo weliba aabbahaaga camal aad u dhimatid? Laga yaabo qof inuu dhimanayo laakiin waa adiga qofkaas. Mowgli wuxuu bilaabay inuu buuraha ku cararo si uu u helo wado uu ku dili karo Shere Khan. Mowgli qorshe wanaagsan ayuu tegay si uu Shere Khan ku dilo. Ugu dambeynna Shere Khan sidaas ayuu ku dhintay. ma fiican tahay? Haa, adiga wax wanaagsan ayaa samaysay, doorka idinna waad badbaadisay. middaani waxay ahayd wax wanaagsan. Aniga waxaan uu sameeyey marnaba ma samayn lahayn. ma ogtiin horta aniga waxa aan rabo inaan sameeyo? maxaa waaye? Sheekadii Mowgli meeshani ayay ku dhamaatay. Waad mahadsantihiin.